بسم الله عشر كنا waxaan kaga hadlaynaa xal kale oo hadii aanad firewall haysanin aad isticmaali kartid waxaana loo yaqaanaa virtual private network waxa la yiraahdaa VPN ayaa loo yaqaanaa virtual private network VPN-da la isticmaalo marka waa laba mid two types ba loo kala saaraa mid la yiraahdaa site to site VPN oo shirkaduhu ay isticmaalaan kambaniyadu ay isticmaalaan anigu raftaydu waxaan isticmaalayo on goobta shaqeyn ka shaqeeyo saddex qaybood ayay isku ka xidhaa ayaan u sameeyay VPN oo meeda tahay hub laba meelood oo kale yihiin icebox oo gobolo kala duwan marka serverka halkan uu yaala hubka koona waxa loo yaqaan icebox mar baynu ka hadli doonaa isaga firewall morabot ka hadli doonaa VPN-ka marka labadoodu muhiim ah iyagu inay iskaaraan laakiin waxa muhiim ah labadooduba virtual private network ahaan inay ku soo gaaraan oo aan u sameeyay wax la yaqaano waxaan sameeyay wax loo yaqaan DM VPN dynamic multipoint VPN ayaa loo yaqaan marka server balkan iyo la serveradaasi soo access karayaan iyagoo internet uu soo kaya xidhay wax kale soo kaya xidhay laakiin shaqo adag baa la qabanaya ma haysto not easy work okay marka waxa jiraya VPN-kayga tan waa HQ-gi koonina waa stationadii ama brancheski waayo brancheska ma looma baahna inaan server dhigo laakiin client baan dhigayaa serverkaygu ma soo baraya ka waxa loo yaqaanaa markaasi site to site VPN waa dheeytadaadii oo internetka tunnel ba laga dhex sameeynaya haduu yahay kali serverkaagi qolkaagi serverka haduu yahay oo server roomki kan yahay ka soo qaad routerkan iyo routerka dhexdooda tunnel baan u sameeynaya internetka dhex mara oo secure oo leh password oo leh data encryption oo leh authentication so many activities ay ka dhex dhacayaan oo xogta halka ka imanaysa halkaasi aan no one ogaan karin waxa loo yaqaan VPN site to site VPN hab labaad baa jira oo loo yaqaan client to site VPN qofkan client-ka bartan fadhiya ama mobile-ka wata mobile haddaad maqashid inta badan PC-guna soo gala PC-ga laptop haddaad maqashid mobile isku soo gala mobile isku jira wuxuu ogolaanayaa sidoo kale inuu HQ-ga uu ka soo gali karo qofku gurigiisa isagoo jooga hotel uu degan yahay alxamdulillah hotel uu degan yahay isagoo jooga uu soo gali karaa marka waxa jira apps aad u fara badan oo la isticmaalo bal hadda saddex kamid ah soo qor saddex application hadda taqaanid way it's not important in aanad aqoonin laakiin saddex VPN oo la isticmaalo bal isku day inaad soo qortid ma hada site to site ka waxa weeyaan waa site to client VPN-ka adu saddex application magacooda soo qor oo xataa mobile-kaaga aad ku shuban kartid si kala baan u dhaxdo soo fududeeyay oo hadda imika Android-kaaga ama Apple haddaad isticmaalaysid dad ku qortid tusaale ahaan VPN thousands of VPN baad helaysaa boqolaal saddex magacooda soo qor insha Allah